Hogaaminta sare ee ciidanka difaaca Tigreega ayaa beenisay waxay ugu yeedhaan beentii iyo propagandadii kooxda faashistiga ah ee BBAB oo sheegtay bay dhaheen inay ciidankoodu gacanta ku dhigeen magaalooyinka Gaashina, Waldiya, Marsa iyo Nifaas Mawjo. waxayna hogaamintan ciidanka Tigreegu soo bandhigeen muuqaalo cadaynaya inay dhammaan magaalooyinkan iyagu gacanta ku hayaan iyagoo markhaati ka dhigtay muuqaalo waraysi ah oo lagaga soo qaaday magaalooyinka ay ku sugan yihiin iyo waliba qaar ka mid ah ciidanka abiye oo dagaalo agagaarka magaalooyinkaas ka dhacay ay ku qabteen haddana kula sugan gudaha magaalada Gaashina iyagoo maxaabiis ah oo markhaati furaya. waxaa kale oo ay saraakiisha TDF markhaati gashadeen gaadiid iyo hub ciidan oo aad u badan kuwaas oo ay ku sheegeen inay ciidamada BBAB ka carareen kadib dagaalo ay iskaga hor yimaadeen aagga Marsa iyagoo maxaabiista ay dagaaladan ku qabteen cadeeyay in hubkan ciidankoodu lahaa oo kadib khatarta ay kala kulmeen ciidamada difaaca Tigreega dhaxalsiisay inay xataa qaadan kari waayaan hubkii cuslaa. saraakiishan Tigreega ayaa xaqiijiyay in xeelada dagaal ee ay doorkan ciidamada BBAB la yimaadeen goobaha dagaalka inay ahayd mid aad u sareysay si qorshaysanna loo dejiyay iyagoo bay dhaheen ciidamada BB isku dayay inay jidgooyo nagu sameeyaan oo magaalooyinkii aan gacanta ku haynay dhaxdooda noo galay balse maadaama oo aysan ahayn ciidan mabda ku dagaalamaya jahwareersan oo wadna fulin kara xeelada dagaal ee loo soo dhigay uusan jirin ciidanka iyaguna isku darsaday mabda iyo karti fulineed ayaa waxaanu ka dhignay bay dhaheen waxaanu leynay wax ku cararay oo annagoo xataa qaban kara aan iska daynay maadaama ay naftoodii nagala baxsadeen iyo waxaan qabanay isla markaana hubkoodii waaweynaa ee ay ka carareen gacanta ku dhignay. qaar ka mid ah saraakiishan oo Gaashina dhex taagan gaar ahaan goob ay maxaabiistii dagaalka ku hayeen ayaa yidhi been gul noqon mayso way sheegi karaan been oo shaqo ayayba ka dhigteen laakiin waxaa ka maqan bay dhaheen kooxda BB inay beentu ka daba iman oo meeshii ay sheeganayeen inay gacanta ku dhigeen daqiiqada kadib muuqaaladanada lagu arko. taasina waa waxyaabaha keenaya inaan ka gacan sareyno kuna kasbano kalsoonida shacabka sababtoo ah BB xataa beenta midda laga rumaysan karo iyo midda aan marnaba soconaynin ma kala garanayaan waxoodu waa iska hadal uun shacabkuna inuu beentooda ka dharagsan yahay waxaa daliil kugu filan bay dhaheen iyagoo shacabka xasuuqaya ayay BB waxay dhahaan waan idin barwaaqaynayna ee xagee ayay barwaaqadu joogtaa. runtii waa wax laga qajilo waxyaabaha ay kooxda BB samayso waana waxay caadaysteen ayay dhaheen balse dadku hadda sidii hore ma aha oo waxaan cadayn lahayn ma aaminayaan. saraakiishan Tigreega ayaa sheegay in howlgalkooda la magac baxay iftiinka waa bari inuu u socdo qaabkii loo dhigay guulo laxaad lehna ka gaadheen waqti xaadirkana uu gabagabo marayo 3 meelood 2 iyo badh dhamaatay waxa uu hadhaynayahay badh oo kali ah kuna soo gunaanadayaan howlgalkan iftiinka waa bari labada xarumood ee deegaanka axmarada looga taliyo ee kala ah Bahardar iyo Gondar iyo waliba xarunta deegaanka Canfarta looga arrimiyo ee magaalada Samara. dhanka kale maamulka Dase ayaa gubay jawaano jaad ah kuna soo rogay ganacsatadii jaadka xayiraada ah inaysan wax jaad ah keeni karin magaalada iyagoo u sababeeyay in dhalinyarada iyo shacabkii ay rabeen inay ciidamada abiye ka garab dagaalamaan ay jaadka ku dhuumanayaan oo intay duhurkii qaataan ay guryaha la galayaan taasoo keentay bay dhaheen moral jibin ciidan iyo in cadawgu nagu soo hirto oo cududanada arki waayo.